السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وريال نيشن meel kasta aad joogtaan ciid mubaarak waxaa idin rajeynayaa caafimaad cimri dheer iyo cibaado suban ilaahay inta xanuunsan xanuunka ha ka qaado inta dhibaataysan dhibka ha ka qaado inta kalena ilaahay maaragta ha u siyaadiyo maanta waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo siyaasadda Soomaaliya waa ka cabsadaa waa dhiiqa waayo waana mugdi adoo nadiif ma ka soo baxayso sidaas darteeda ma jecli inaan badanaa aan galo laakiin maanta wax yar aan rabaa inaan ka hadlo waxaan rabaa inaan ka hadlo xilkan laga qaaday Khayre maaragtay habkii looga qaaday iyo maaragtay waxyaabaha wanaaga oo ka soo bixi kara arrintaas aan rabaa inaan ka hadlo mid koowaad waxaan rabaa inaan u tahniyeeyo aan mahad aan la soo koobi karin u celiyo anoo ku hadla bahda Somali Nation Warrior Nation iyo Soomaali meel kasta ay joogaanba Prime Ministerkii hore Khayre si sharafta leh oo wanaaga leh oo maaragtay oo ogolaaday xilkii laga qaaday mid kale waxaan rabaa inaan dhaha baarlamaanka ka xilka ka qaaday jidkii loo mari jiray maysan u marin constitutionkii ay ayaga sameeyeen ama ay ku shaqeynayeen respect maysan siinin maxaa la dhahaa ii sheeg dambi weyn way ka galeen runta marka la isku sheego I don't think inay xumaan ay ka tahay laakiin aqoon isdarre inay ka tahan u malaynaya qof wadan neceb oo dhibaato maaragtay baarlamaankaas ugu jiro inuu wadanka dhibaateeyo ama lugooyo ama Khayre xumaan oo u qabo u malaynayo laakiin aqoon isdarra meesha u geysay waa boqolkiiba 80 dadkan baarlamaanka ku jira hadaa weydiisad roolkooda iyo shaqada responsibility-gooda ma yaqaanaan ma ku qeexi karaan shaqada imagine maanta inaad soo shaqo tagtay aadan aqoon responsibility ku saaran subaxa iyo roolka maaragtay lagu hayo kare hadaadan aqoon ka waran dhibkaas ay leedahay marka waxaan jeclaan lahay inaad dadkan at least wax kale tayaan la constitutionkan ay sheegaan ay bartaan wax weyn ma aha wadanka lacag badan maaragtay ay ka qaataan maxaa la dhahaa ii sheeg waxaad arkaysaa nin maaragtay $1 milyan gelinayo inuu kursi helo oo member of parliament noqdo aada isku weydiiyay war faa'iidada oo ninkan ka heli doono 1 milyan meeshan oo geli maxay tahay ilaa hadda qof ii sheegaan la ahay laakiin jawaabteeda anaa in soo sii doono haddaan helo waayo insha Allah marka aan usoo laabto Khayre xilkan laga qaaday Khayre maadaama laga qaaday oo maanta positionkii prime ministerka oo banaan yahay waxaan jeclaa lahay xilkii in loo dhiibo qof dumar oo waliba ka timid 0.5 dadkan la dhahayo qofkaasna in qualify oo u yahay maaragtay positionkaas oo maaragtay qaadi karo oo maaragtay oo xilkaas oo qaadi karo sababta aan u dhahayna idin sheego waa ogahay inay qabiil dhan oo hawiya ay isku diyaarinayaan inuu baarlamaanka prime ministerka ayaga ay leeyihiin laakiin hadday maanta ka tanaasulaan ay dhahaan okay aan doorana qof dumar oo 0.5 ka yimid number 1 faa'iido ugu horeysa ay sameynayso waxay tahay waxay baabi'inaysaa waxaan 4.5 kala dhahaa waxaan foosho xun waxaan xaq darrada ah waxaan maaragtay sidii maaragtay loo caabuday sidii maaragtay loo aaminay inay maaragtay wax oo aayado quraan ku soo degay camal ah war 4.5 oo wax aad u xun waa wax xaq darro ah waa wax aad dhehaysid nin kaleeto oo walaalka oo wadankaas kula joogo ama maaragtay 0.5 ah anigana hal buuxaan ahay war waxaan qabiilada waaweyn oo Soomaaliya waxaan inaan ka tanaasulno tanna waa tii looga tanaasuli lahay hadduu maanta hawiye ka tanaasulo positionkan oo si sharaf leh ugu dhiibo dadkaas 8.5 ka tirsan waliba qof dumar ah saddexda arrimeed dhalinaysa idin sheega mar waxa waxay ciribtiraysaa ama dhaawacaysaa waxaan systemkan la dhaha 4.5 mar labaad waxay niyad gelin iyo kalsooni iyo isku maaragtay filnaan ay siinaysaa hablaheena Soomaaliyeed waa dhaawacsan yihiin hadda ayaan dhaweeyay Facebook waxaan soo galay maalin dhaweeyay dhahay maaragtay positionka waa inuu qof dumar noqdaa waa inuu 0.5 noqdaa war dumarkii ay la dagaalaa waxay leeyihiin arrintaas ma soconayso Soomaali ma waxaas ka dhacaysa marka ana su'aasha aan dhahay hadaysan maanta ka dhaceen goormay ka dhacaysa adduunkan systemka wax kasta waxa la dhahaa process change wax la system culture change waxa markaa inaad sameynaysid you have to start somewhere waxa waxaan
Soomaali dhibaatada haysato culture change u baahan yahay waa wixii dhaqanka dhan in la bedelo dadku waxay aaminsanayeen perceptionka dalka inaad rogtid waayo wax easy ma aha marka waxay ka bilaabataa hoosta inaad kasoo bilaabto salka inaad kasoo dhista aad kor usoo qaadid waa wadamadan hadda Europe iyo North America aan joogno accountability wax la dhahaa jiro qofka minority hadduu ku yahay maanta dhan waa qaylinaysaa waa la casurinima leegu sameey rasistanima leegu sameey xaqeega leema siin shaqadaas leema ogolo because waa madoowahay because muslimna ahay because ka waran dadkii wadanka u dhashay oo qofkii xuduntiisa meesha ay ku dugneed oo weligiis xaq aan arkin ka waraade imagine that 4 sano soo ordo 20 sano meelahan joogto waliba ceer lagu siinayo lagu dhibayno hataa oo qof kasta oo san ku dhibaateenin oo booliiska meel kasta ku taagan shaqooyinka hataa ee maaragtay hadad qualify u tahay aad heli kartid aan joognaa oo dhibaatadeeda yarta oo xaqaada la ilaalinayo imagine qof ku dhashay wadankii xuduntiisa meesha ku duugan tahay cimrigiisa aan xaq arkin marka hadduu kaas culture kaasay haddaana bedelayn حتى محل اسكول هذا ما اسكتافنا محا وحيقينا مركب 0.5 كا 4.5 كا دبكا سو ليهي هدا خيلكان لو ديبا قف 0.5 ahna wuxuu dhaawacaya ama cirib tiraya 4.5 ka dibku leeyahay wuuna tirtirmaa tan labaad dumarkeena haday maanta gabar Soomaaliya prime minister noqoto dumar badanaa hamigooda soo kacaya niyadooda soo dhismaysa ayagana inay sameey karaan imagine adiga qof bini aadan ahaan adiga iska qaad haday maskaxdaada 50% aysan shaqeynin aqli xumo 50% boorka taagan tahay aqli xumadaada waa 50 50% ka maqan because content bas ku shaqeynayso wax meeshayna geysanay last 30 sano ugu dambeys aan aragnay kaas iyo wali wixii ka horeeyo kale dawladda siyaad bara at least woman maaragtay dumarka role badan ay kala haayeen waxyaabo badan oo maaragtay trial blazer oo ahaa maaragtay ajray taas oo taariikhda maaragtay way ku qoran tahay laakiin 30 sano la soo dhaafay because dumarkeena dhibaatada loo geystay meeshii oo laga maaragtay xaqoodii oo la xaqiray in laga bixiyo decision making ama inay go'aanadii la gaaray in laga saaro dibkeen oo keentay waa aragtay waa ilaa maskaxdaada 50% ay shaqeynayso adi 50 ku noolaa waa kaasete doqona wax yar boorka taagan tahay samaha antan u dambeeso oo waxaanay qof hada dumar ah oo 0.5 xilkan maanta loo dhiibo adduunweynaha waxay ku arkayaan in country aad model aad tahay oo lagu daydo ilaa United Nations kuma imaan kuma dhihin waxaan sameeyay European Union kuma dhihin imaan sameeyay dadka oo maaragtay xuquuqda oo maaragtay dadka danyarta dadka xuquuqda maaragtay dadka minority iyo dumarka u dooda inay ku imaadaan kugu maqasmin dawladii iyo wadankii ay go'aan isla gaaray inay arintan sameeyaan adduunweynaha hataa kugu soo dhaweynayaan maaragtay positionka aad ka taagan tahay hadda aad adduunka wanaaga loo haayo dadka Soomaalida meesha lasting ka joognaa wax yar soo ka cilaad marka hal ficil aan sameeyno oo isugu dul qaadano 6 bilood oo waxyaabahaas dhan qabanayo balka war yaa ku wax lagu diido ma u jeedo waxaan rabaa videogan please share gare qofkii Soomaali oo kale oo hadaa aadan igu raacsaneen arinteeda aadan maaragtay aaminsaneen oo macnaha aan macnaa iga waxaan sheegaa ay kula qaldan yihiin oo dhanka kale aad debate-kaada ka soo wadid please share gare because conversation kan waa u baahanahay inaan bilaawno haddii hataa dhicin hataa maanta we have to have this conversation masamaha we have to have this conversation waa inaan maaragtay ka wada hadalna arrintan haddaan maanta la bedin goorma la bedelaya xaq darrada ma iska soconaysaa yaa ilaahay u sameeyay in laga xaq darnaado imagine that adi أنا هذا وطن كان باسبور كان هستا بري هذا اللي يقول دبعتي هتا اسك بixi karaa beledweyne aadi karaa laakiin ka waran qofka beledweyne ku dhashay noloshiisa dhan xaq darro ku jiro wax kale aan aqoon aabihiisa xaq darro yaqaan asiga xaq darradii dhaxlay ilmihiisa xaq darradii dhaxlay ishe haday nala wanaagsan tahay ee arintaas kul wanaagsan tahayna wax caadi ah oo aragtidna
adiga waay waa wax oo macnaha aniga koley tala aan ku siimaan wax kaloo sameyn kara ma jirto hadda waxaan baranay wax caadi la dhaho waa la caadaystay xaqdaradii la caadaystay bal fiiri member of parliament ah qof wuxuu ku bixinaa 1 milyan in la doorto waa wadan hataa xaarkiisa saxaradiisa aan meel sewer system hataa ma qabin saxaradeena hataa meel ma gee karno iska dhaaf adiga wax kale adduun 2020 aan joognaa ya 2020 aan joognaa aan tuugsanayna ay European Union lacagtaada bixinaysa ay African Union ku ilaalinayaan aad xalanaha hataa madaxdaada aysan gali karin wax lagu sameeyo ilaahay ogyahay gobol kasta maaragtay African Union ku joogan oo maaragtay al-shabaab iyo laga ilaalina marka warunta marka la rabo qofka bini aadanka some point somewhere inuu frame ka qabto oo bal usub bini aadan maxaan u ahay muxuu ilaahay maskaxdan yar iisi Soomaalida waxa u malaysaa qof kale ka sugaan in dhibaatadii u solf kareen qof kale ka sugaan dhibka jiray inuu u solf kareen Soomaalida kiisa wanaagsan hataa on qabiil ku mashquulsaneen siyaasad ku mashquulsaneen waxba aan ku mashquulsaneen ilmihiisa caruurtiisu daba orda wadankan iyo wax ka socday shaqo ku male wuxuu leeyahay ilaahay waa u duceena ilaahay maartay war adeey ku saaran tahay awoodda lagu sheegaa shacabka wadanka jooga waa inay kacdood wax la dhahay ay sameeyaan waa inuu maaragtay qofka minority haduu yahay xaqiisa inuu hadii la sii waayo mudaharaadi ay sameeyaan waa inay albaabada xiraan waa inaa maaragtay war dhiig in loo daadiyo waa inuu qofka wixiisa dhacsada qofka bini aadanka qof wax sii kara ma jirto qofka bini aadanka qof kale oo bini aadana oo xurnimo iyo wanaag iyo sii kara ma jiro waa inuu dhacsada waa inuu maskaxdiisa ku dhacsada waa inuu xoogiisa ku dhacsada waa inuu dhiigiisa ku dhacsada waa inaa maaragtay war arday waxaa jirta maaragtay jaamacadii dhameen high schooladii dhameen waalidkooda maaragtay intaas lacag ka bixinaya private school la wada aaday meel aadan ma haystaan banaankaas uu taagan yahay shaqo ma haysto nolol ma haysto maaragtay waalidkii ku tacbir waxay ka helayaan male qofkaas marka inuu maaragtay ideology kale oo maaragtay al-shabaab ama qof kale inuu isticmaalo waa sahlan tahay masama wadankii kale dib ka jiro waxa waaye qofka bini aadanka waa inaa xaquuqdaada adiga weydiisataa education wanaagsan iyo caafimaad wanaagsan labada wax oo adduunka maanta adduunka aas-aaska qofka nolosha markuu dhasho oo cunto waa waxa basic ah cunto iyo shelter la meelo jeefti iyo cunto markuu helo educationka iyo healthiga ku jiro waxa arkaysaa Facebook ana ku arkay malaayiin kumanaaso kula soo qoraayo message aadan akhri karin jaamacadeena dhameen education ma jiro private la iska qolo mid iska furtay curriculumkii wax ilaalina male wasaaradda waxbarashada shaqadeeda gubtay tii caafimaadka shaqadeeda gubtay tii finance shaqadeeda gubtay marka dawlad maxay ka tahay isheeg waayu wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo hogaamiye kalkaaliye tayraladan iska daldalatay maxay tahay hadaad curriculumkii hataa arday diyaar ah oo hataa maaragtay high school markay ka soo baxaan reading iyo writing Soomaali hataa iska dhaaf luqadii kale Soomaali clear oo qori kara ama akhri karo hadaadan produce karin wasaaradda waxbarashada ma iska xirtid hadaad hooy ma aragtay iyo caruur dhashay hadda maternal health hooy hadda dhalatay hadaadan hataa nabad aadan ku umuli karin ay cunugeedii iyo nabad oo banaanka soo bixi karin wasaaradda caafimaad maxay ka jirtaa ma iska xirtid ishe war anaga lacag siileen haday wadankaas oo wanaagsan yahay United Nation iyo NGO iyo waxa ka rabtid mala Soomaalida qofkii awoodo Soomaalida dadka wanaagsan male inay $5 $10 bishii u qoraan wasaarad oo effective oo shaqeynayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عيد مبارك again